dhalinyaro iyo waayeel kuwaasi oo ahaa dad raameystay oo xaaladaha ay u raameysteenna ay ahayd arrimo ay iga sheekeeyeen oo aad ka dhexheli doontaan barnaamijkeennan aan ugu magac daray geyigeenna maqan iyo galbeed. barnaamijkan wuxuu noqon doonaa qubanoyaal ama musalsal, waxaana uu noqon doonaa 10 qaybood hadduu ilaah yiraahdo. 10 qaybood oo aan mid walbaba aan isdul taagi doono. 10 qaybood waxay kala yihiin haddaan soo horo sida tan soo socota. kow, safarkii nafteyda hinqaaray. safarkaas oo ahaa safarkii ugu horreeyey ee aan kula kulmo waxyaabo badan oo nafteyda bedelay, iyo anoo filaya idinkuna inaad tihiin ama noqon doontaan naftiina mid bedela, ama aad ka dhexeli doontaan su'aalo badan oo aad u jeel qabtaan inaad isweydiisaan. qodobka labaad waxaan kaga hadli doonaa wadiiqooyinkii wadka loo marayay dhulka loo yaqaano galbeed oo horey aan uga sheekeynay oo ay ka dhaceen gulufyo aad u waaweyn, kuwaasi oo ku salaysnaa hanaanka diimeed iyo midka dhaqan iyo dhaqaale iyo isriixriixa qowmiyadaha. wadiiqooyinka wadka loo marayay waa halkii ay ku go'een ama ay ku leedeen kumanaan geesiyaal Soomaaliyeed. waxaa qodobka saddexaad aan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna musalsalka noqon doona qodob aan ugu magac daray qudbiyada qarwa. qudbiyadu waa meesha lagu aaso dadka yacni halbowlaha u ahaa hormuudka, gaar ahaan mushiiqdii ama wadaadadii ama scholarskii ummadda Soomaaliyeed hogaaminayay. qudbi marka waxaa la yidhahdaa meel uu ku aasan yahay qof la siyaarto ama bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa. qudbigaasi oo meesha uu ku aasan yahay misna waxaa ku agyaala inta badan masaajido ama meelo lagu cibaadaysto. qudbiyada qarwa sababtay u qarwayaanna waan idin soo gudbin doonaa. waxaa kusii xiga xabaalaha xurmaysan. xabaalaha xurmaysan waa xabaalaha ay ku aasan yihiin awaaladeenna, awowayaasheenii aanu ka soo jeednay badideen dadka Soomaaliyeed, kuwaasi oo 10 qarni difaac ugu jiray si aanan loo soo gelin soohdimaha ummadda Soomaaliyeed. qodobka ku xiga wuxuu noqon doonaa ruuxaamaha ama ruuxaanta dabran. dabarka waad garanaysaan, ruuxaamahaas la dabray oo aan meelaha ay ku dabran yihiin iyagana aan ka sheekayn doono ayaa qodob ka mid ah. waxaa kusoo xigi doono dooxooyinka hinraaga, durduro biyo ah oo samadaasi u baxay oo buuraha dhinacooga ama dadabka buuraha maraya oo hinraagaya ayaa iyagana kusii xiga. waxaa kusii xiga qodobka kale ah buuraha foodhiya, buura cajaayib ah oo isu tabiya foodhida. buurahaasi oo qaarkood ay isu jiraan 2,000 ilaa 3,000 oo kilomitir, haddana isu foodhiya oo foodhidaasi iyo waxa sababayo ayaan iyaduna ka warrami doonaa. waxaa kusii xiga webiyada samada waraabsha. webiyada samada waraabsha, biyo sare tegay oo meel aad 2 caano maal u socotay oo joog sare ah, biyo ka shalwanaya, sababta lagu saaray iyo graafiga biyaha meeshaasi qaabka loo geeyey iyo dadka xeerbeeg yacni xeeladda ay adeegsadeen ayaan iyadana ka hadli doonaa. waxaa kaloon ka hadli doonaa wax lagu yeero qodobka ah dugaaga dabiiban, haramcad iyo libaax, waraabe, maska goodka loo yaqaano, abriska, masduulaaga, abeesada, beyda, wax walba oo dugaag ah oo ama ilig wax ku dila ama wax qaniina oo dabiiban oo aan waxba taaban oo aan dhib kuu geysanin ayaan iyadana kaga hadli doonaa. waxaa kaloon kaga hadli doonaa qodobka 10aad ee barnaamijkeennan galbeed iyo geyigeenna maqan, hamuuntir iyo xasuusku dhereg. hamuunta waxaa la yidhahdaa gaajada qofka markay hayso, sababta markaa qofka marka uu gaajoonayo uu diihaalaysan yahay. hamuuntir waxa lagu hamuuntirto iyo xasuusku dhereg iyo wax hore oo la cunay oo la soo maray oo lagu dhergayo ayaan barnaamijkeennaasi uu noqon doonaa 10 qodob ah ee aan ugu magac darnay geyigeenna maqan iyo galbeed. qodobka koowaad ayaan markaa maanta insha allah isyar dul taagi doonaa, maadaama uu yahay qodobka ugu horreeyaan ku daafuri doono safarkaasi aan ugu magac daray safarkii nafteyda hanqaaray ama bedelay. xilli abaaraha ay ku beegan tahay jiilaal dabadii ayaa waxaa jirta aan ka raacay gaari magaalada Addis Ababa, meel loo yaqaano Atobstera. Atobstera waa meel ku taalla galbeedka ama cadcidhaca magaalada Addis Ababa. waa meel ay isugu yimaadaan gawaarida ka baxa dalka Itoobiya oo dhan, sida la ii sheegay berigii Eritrea intayna ka goyn, xataa meeshaasa waxay u ahayd saldhig. Atobstera waxaa lagu kala ahaa xilliga markay tahay 3 subaxnimo ilaa 4 dadku meesha isugu yimid waxaad moodaa inuu qiyaamihii dhacay. Atobstera waxaa jooga ama isugu yimid geyigaasi Itoobiya oo dhan dadkii u kala hayaamayay ama yacni u kala safrayay.
guuxa gawaarida iyo sawaxanka iyo buluushinka meesha ka jira qofka maalintaa ku cusub waxaa qasab ah inuu salalo ama uu hunqaaco ama uu dhib iyo kala kulmo wareer iyo dawakhaad sababtoo ah magaalada intaa la eg iyo waddanka intaa la eg ee malaayiinta ah hal meel ayaa loogu asteeyey inay gawaarida ka baxaan ma garanaya hadda xilligan la joogay in la bedelay meeshaasi 4 subaxnimo lagu kalahaa waxaa dadka ka sii horeeya dibjiriin reer Itoobiya ah ama xabashi ah oo gawaarida aad tigidhkiisa goosatay kuraastooda fadhiya dadka Itoobiya gawaarida ka raacay ama ku soo noolaa way yaqaanaan xaaladaasi gaari kasta waxaa buuxiyay dibjiriin si seexatay xalay atobisteera meeshaasi gawaarida laga raaco dabadeedna kursi walba halkaasay fadhiyaan gaar ahaan kuwa aada gobolka bariga ama dhulka Soomaalida kuwa aada halka marka waxaad kula kulmaysaa kursigii aad adiga goosatay ee ahaa inaad ku safarto qof dhalinyaro ah oo fadhiyo waddanka Itoobiya waxaa ka jira wax loo yaqaan isnaasnuujin darwalinta iyo booliska iyo amniga intaba lagama yaabo inay farageliyaan qofkani meeshaasi mushqaayada yar uu ka helayo ka yaree meesha fadhiya dhalinyarada ana wuxuu ugu talagalay inuu kursigaasi marka aad timaado aad shaah siiso dabadeedna uu kuu banneeyo laakiin dadka yaqaana dhaqanka maamuuska iyo luqadda afka Axmaariga ee Itoobiya ku noolaa ama horay Itoobiyaanba u ahaa dadkaasi kuma soo degdegaan laakiin dadka Soomaaliyeed ee waddanka ku cusub weeyaan dadka inta badan arrimaha nooca ay ku dhacaan qof kastoo halka marayna ama de ka safrayna uu marqaatigeeda u hayaa gawaarida halka laga raaco waxa ahaan jireen nooc loogu yeero kaashamaali oo ah kuryeeri ama basaska waaweyn ee gobolada u baxa inkastoo mar dambe la sheegay kuwa yar yar oo deegaanada Booley iyo Saris iyo Maganaayo oo Soomaalidu degan tahay kuwa ka bixi jiray baskaasi marka waxaan ka mid noqday dadkii diiwaankooga lagu qoray inay ku safraan subaxaasi waxay ahayd subax ajaayib ah waxaana aad u xiiseynayay safarka aan ku sii aadi doono dhulka geyiga galbeed ee Soomaaliyeed gaarigu in badan ayuu meesha dhex joogay oo muddo saacada ah markii dambe darawalkii ayuu kilida laga gujiyay sidii baan safar ku galnay magaalada markaan waan dawaqsanahay xiinkii iyo guuxii gawaarida iyo qiiqii iyo dadkii isdaba marayay iyo qayladii iyo buuqii ayaa waxa weeye iyo adigoo de aanan xalayna seexanoo safar kugu jiray ayaa la dawaqsanay xilli ay hiirta waa bari ku sii dhowdahay ayaa waxaanu tagnay magaalada loo yaqaano maanta Laasreed oo la oran jiray haadama imikana saldhig u ah qoomiyadda Oromo oo loogu yeero Adama magaaladaasi waa magaalo ka cimilo iyo qaab iyo dhir duwan Addis Ababa waa magaalo markii aan sidaa u dhex joogsaday aan dareemay neecawdeeda inay tahay mid ku sidkan bulshada Soomaaliyeed deegaamadeeda dad badan oo gaariga saaran oo Soomaali iyo Ethiopian iyo nooc walba isugu jiro ayaan anigu markaa tooyasho ugu dhaqaaqay inaan magaaladan weydiiyo laakiin magaaladani ma ogi inay tahay kuwa aan diiwaankeeda hayo oo aan horay taariikhdeeda u hayay marka waxa la sheegay inay tahay Laasreed magaalo la yiraahdo dabadeedna qolo kale oo Soomaaliyeed oo dadka deegaankan waxay ugu yiraahdaan magaaladan Hadama la yiraahdaa waa magaalo Soomaali lahaan jirtay maanta laakiin waxa loo yaqaanaa Adama oo qoomiyadda Oromo ayay saldhig u tahay xaqiiqdii marka aan sidaa idin leeyahay waa in aan doonayaa inaan idin dulgeeyo dhulkeena sida uu yahay sida uu ku baxay iyo sida marka anigu aan aaminsanaa iyo waxyaabo badan oo ii soo baxay oo barnaamijkani aad ka dhaxili doontaan wax badan oo cajaa'ib oo aniga laftayda ilaa iminka iga dhex guuxaya halkii anagoo joogno ayaa haddana nasiib darro gaarigii markiiba waa la istaaray dabadeed gaariga maba la baktine horaa laga sii waday anagoo markaa ka dhargin magaaladaasi in la ii faahfaahiyo ayaa haddana xilli bariisimadii ah ama dee barqada dabadeeda dambe ah ayaa haddana waxaan tagnay magaalo loo yaqaano Mutahara oo afka Oromada ku noqonaysa haradii buuraha Mutahara waa magaalo volkaanooyin adag ay ka dhaceen oo magaalo ahaanna saaran dhinaca midige ee marka Addis ka timaado magaalada xooggeeda waxa weeye waa dhinaca midige dhinaca bidaxe volkaana ka dhacay waxa deegaankana dawlad ahaan deegaanka waa la diiday in la dego sida la sheegay magaalada markaas saan u dhex joogsaday iyaduna neecaw aad moodo in mataqaanaa ay ku soo dhaweynayso oo ay dadkii deegaanka ku soo dhaweynayso oo ninkii dhulkan u dhashay ee ka maqnaa ee ka baxsaday ama awooyaashii ka haajireen neecaw soo dhaweynaysa isla markii waxaan loo sheegay in halkan quraac laga cunayo
magaalada markaa gudahay ku jirtaa laakiin wadada doowga dhinaceeda waxa saaran hoteelo laga cunteeyo oo aad u tiro yar markaa nasiib wanaag hoteelkii ugu horreeyey eenu ku degnay wuxuu noqday hotel dad Soomaaliyeed leeyihiin farxad iyo nayaayiro ayaa aniga ii noqotay markaan arkay hoteelkii oo nin Soomaaliyeed oo dabaaq yahay oo dhigdhiga uu ka yahay kabalyeeri oo uu ka yahay ninka mataqaanaa maqal hayaha waxay ii noqotay wax aad u farxad badan dadkii waxay ku qamaameen inay cunto cunaan anigu laakiin waxaan bilaabay waraysi isla markiiba ninkii maqalkan ku yiri Soomaali baa tahay haa Soomaali markaa wili wuxuu ii sheegay haybtiisu ii sheegay waan isku soo dhawaanay dad ahaan xataa hayb ahaan ayaan isku soo dhawaanay ninkii waxaan ku yiri bal warkay siiyo waa maxay magaaladan Addis Ababana aan wax badan ka fogeen mid kale oo horena haadaamana waan soo maray halkan ayaa degan dabadeed ninkii sheeka aad u dheer oo dib ka sheegi doono ayuu ii sheegay anigoo markaa la yaaban ayaa haddana waxaa soo galay wax yar kadib dadkii safarka mooyaane dadkii deegaanka ayaa hoteelkii soo galay oo cunno raadis ah ama gasiindoon ah dadku waxa weeyaan waa tuurweyn raggu waa wada tuurweyn habluhuna waa wada tuulmoon yacni raggii tuurka weynaa ee timihii weynaa ee Soomaalida lagu yaqaanay ee feedna ee firinka halkan ooga jiray oo ayaa soo galay hablaha la socdo timatidcan oo wada tuulmoon ah oo cajaa'ib ah hablihii dharka hidaha ay sitaan iyo ragga Soomaaliyeed dharka ay sitaan isla markiiba waa la wareemay tantooma igu dhacday ninkii aan wareysanayay waa ka jeestay dadkii soo galay deegaanka ahaa ayaa haddana ku bilaabay rag nin kamid oo firin sita ayaa waxaan weydiiyay halka uu firinkan ilaa anigu waxay ugu qufulnaa tuurweyn in dalkeennu maanta ay ka jireen waan ogaa inay jiraan qoomiyado badan oo sida Soomaalida timaha u feedha dharka Soomaalida xidha hablaha Soomaalida si ay u tidcaan dad u tidcado inay jiraan laakiin maskaxiyan iyo aragti iyo dhaayahayga waxay arkaan inaan gudaha Itoobiya ama deegaanka ku arko waa markii ugu horeysay ninkii firinka sitaan ku yiri war stylekan qaabkan timaha aad u feeratay iyo firinkan iyo labadan qaydeed sidato wala gu'i waaya xageed ka keentay nin dhalinyaro ahaa oo xooggan oo cajiib ah dabadeedna wuxuu igu yiri adigu xageed ka timid waan u waramay dabadeedna wuxuu igu yiri dhulkan iyo deegaankan waa deegaankeena waxaynu nahay dad Soomaaliyeed oo isku sidkan oo qabiil walba oo Soomaaliyeed magaalada wuxuu yiri xeeb dhinaca yani harada dhinaca magaalada waxa ka martaa dhinaca midige waana harada loogu magac daray magaalada Mutahara harada buurta loogu magac daray harada dhinaceeda dalag badan baa ka baxa wuxuu yiri dhinacaas wax degan waa dad Soomaaliyeed gudaha hadaad u sii kacdana beeraley badan oo Soomaaliyeed baa jira Soomaalina way ka horeysaayo halkan ku meeko hablihii baan ku yiri hablahan timaha tidcan aan heesaha ku maqli jirnay gabar tima tidcan iyo maxaa la oran jiray geeljira aan gaajado karin iyo gabar tima tidcan waa waxa gigigeena u gaarka ayaan maqli jirnaan ku yiri ragga ku heesa waa anagu yiri marka waxa ku yiri inatan ma ooridaadiba mise waa walaasha markaas uu yiri waa oorideyda waxaana keenay xoolaan keenay gegida xoolaan iibinay dabadeedna goordhow waan rogmeynaa waan gadoomeynaa oo dabadeedna xagga iyo mi ayaan u gadoomeynaa sheek anoo markaa halkaas ii marayso ayaa waxay ugu dhacday qisadii ahayd xasan aadan samatare ahaa muxuu ahaa sheeke arrintii heystii beledweyn ee ahaa heystii ahayd birimay xumaato maxay ahayd badroolka daadshow labada bukoodo yani arrintaas ay usoo dhacday wargaarigan baas muujabo ad xoogaha bal details badan iyo faahfaahin badan iyo aad ninkan ka heshida markiiba waa naloo yeeray dabadeed meeshaan lagu riday markii wuxuu xageed ku socota waxaan ku yiri meel allaala meelaan ku socda anigu ma garanayo galbeed baan u socdaa markaas uu dhulku ballaaran yahay laakiin isku day in aad dhulkaaga dhan marto igu yiri ninka waan ka soo gudubnay hadalkii ninka markaa labdilaac uu igu noqday dhulkaaga inaad barato marka waxa ii iftiimay inuu geeyigayga maqan yahay dhulkayga xoogiisa inuu maqan yahay aan ku sii fooganahay ayuu ninka ii sii iftiimay qararararaf dawga markaan socono dhinaca midige ee dawga dhinaciisa bidixe oo xagga u sii jeedo nin gaariga saaran baa wuxuu igu yiri dadkaasi Soomaalida aad qaabkood u haysato qaybo kamida waa qoomiyada canfarta marka wuxuu yiri sidaasay isu dhinac yaalaan Soomaalida iyo canfarta sidaas isu dhinac waa halka iska soo galayaan marka anigoo marka kuwan la yaaban kuwii horena la siyaaban ayaa goor harsoo korkii ah oo adiga hargalka wax yar ka hor
ayaa haddana magaaladii awaasa ee iyadana aad heesaha ku maqasheen ee lagu dhaadan jiray awaasa iyo hadhaama iyo harar iyo hirna iyo magaaladii kale ee la oran jiray hoobad oo ah magaalooyinkii lagu dhaadan jiray ayaan haddana istaagnay marka nin soomaaliyeed oo reer Addis Ababa ah oo xaafad liyaada Soomaali Teera oo Addis Ababa ku dhashay ayaan gaariga marka ka dhaxlay waayo wuxuu arkay inuu dadka tooyanayo marka waa nin aad wanaagsan buu ahaa ninkii baa markii wixii xagga soo fariiso magaaladana awaasa la yiraahdaa buu yiri awaasa ma magaaladana ha war awaasana waan u baahnaa awaasa markii lama galo magaalada iyadana midigtay saaran tahay lama galo laakiin laamida ayuu gawaaridu iyaguna joogsadaan oo hoteeladu laamiga ay ku teedsan yihiin oo dhinac loo joogsadaa ajaa'ib waxa ahaa dadkii ugu horeeyay ee laamida joogay ee meheradaha haysta waxay noqdeen habla Soomaaliyeed oo ilka dabar leh habla Soomaaliyeed oo wada ilka dabar leh ninkii baan ku yiri war hablahan ilkaha dabar kale nin baan la ragii hablihii timatida canaa iyo waxaan la yaabanaa iyo qolyihii kale kuwan dabar kalena waa maxay markaasuu yiri dadkan dabar kale arkaysid waa wada Soomaali iyo dad ay Soomaalida isdhaleen dadka Soomaalida isdhaleen dib baan ka sheegi doonaa dabadeedna dadkii baan markaa waxaan bilaabay weli aniga wax afkayga ma saarin shaahna ma cabin dadku way soo quraacdeen haddana waa hargalkii cunto raadis bay ku jiraan anigu markaa wax cunto iga degay ma jirto cabitaan yar oo la oran jiray oo Fanta ah oo la oran jiray Marinda oo la wada yaqaano Ethiopia dadku aad u yaqaanaan kaasaan sitaayoon weliba hadda ii buuxo markaa waxaan iyo xiisahan iyo arrimahan ayaa aad igu weyn dabadeed ninka wuxuu igu yiri awaasa wad arkaysaa iyadana waa magaalo noocaas ah taariikh dheer buu ii galay taariikhdeedan dib aan ka sheegi doonaa dabadeedna waan ka sii gudubnay kaabad waxaanu marnay ajaa'ib ah kaabad marka magaalada awaasa waxaa mara webigan hawaas la yiraahdo magaalada webiga hawaas waa webi asaguna ajaa'ib ah oo halku ka soo unkamo iyo halka uu ku fufo ee uu ku dhamaado intaba Soomaali baa teedsan waxa ka soo go'o dalag aad u badan waxa laga cunaa dhulkaasi qudrad fara badan oo nooc walba leh halka uu webiga ku dhamaadana waa ilaa iyo cirifka dhulkeena hoose ee galbeed ee Soomaaliyeed halku ka soo bilowdana waa isla dad Soomaali wax degan webiga marka in laga talaabo oo loo talaabo dhinaca shishe waxa qasab ah in la helo kaabad ama buundo ama bridge kaasi waa mid tareenaduna maraan gawaariduna maraan marka waxa la sheegay Talyaaniga ayaa dhisay waa kaabad aad ajaayib u ah kaabadii anoo la dhayagsan oo ashqaraar ay ugu reebtay ayaan dhinaca kale u talawnay waxaanu ka baxnay wax yar markaanu soconay wadadii laamidi marka waxa la sheegay wadada laamida halka markaanu joogno oo ina ka baxayno dhinacan waxa aada wadadaasi wixii dhinacan u aada laamida waa qoomiyadda canfareed wixii dhinacan aadana waa qoomiyadda Soomaaliyeed marka halkii aan ku kala beennay ee dowga ahaa ayuu haddana baski joogsaday kani bas ee dalawal ana waxaan moodaa anigu inuu xuq igu beerayo oo anigu ii daleeyahay meeshii uu joogsaday sidaa markuu u joogsaday waxaan ugu soo xoomay hablo timatidcan oo ajaayib ah oo qaarkood sida ay u xaragoonayaan iyo labiskooda aad yaabto oo yacni jirkooga iyo muuqaalkooga aad moodid haddana inay wax ku dhaashadeen laakiin haddana muuqaal iyo weji iyo jirkii asalkii Soomaaliga haddana laakiin aad moodid inay wax ku soo dhaashadeen dhaashashada waxa la yiraahdaa kareemka ismarinta kareemka dadkii baan ku soo markaa aan ka mid noqdo aniga haddana inaan aan ku ordo waayo waxa weeyaan hididiila marba sii galayso hablihii af Soomaaliga ku hadlayaan walaalo ma waxaad doonaysaa cambe laf waxa la iibinayaa cambe laf saytuun muus yaro gaagaaban qudrad markaa ka soo go'day webiga jiinkiisa ama webiga cirifkiisa ka soo go'day waa wada Soomaali marka tooyashaan bilaabay kalsoonideediiba sii badatay hablihii baan ku yiri xagee ka timaad waxay yiraahdeen maba fogaba webiga magaalo yar webiga aan ka fogeyn ay sheegeen ayay ka yimaadeen dabadeedna waxay ii raacayeen inay yihiin habla u dhashay beesha Gugundhabe oo Hawiye ah dadkii hore soo maray reerahooga maanan sheegin waan sheegi doonaa insha Allah halka markay arrin marayso ayaan hamiyay waxaan isiri warniyo armaadba gaarigaanba ka hadhaayo aad duurkan gashaa arrintaadna kala hadlayo waa arrin xaqiiq ah ma ahan mala awaal iyo wax kale wallahi waa wax iga xaqiiq ah
waxaan naftayda kula faqay gaarigan iyo safarkii halkaan ku socdo inta isaga haro ayadan inaan galo waayo waxbaa bilaabay inay hinqiyaan waxbaa bilaabay inay ila faqaan waxbaa bilaabay in mataqaanaa wax ii tusmeeyaan oo waxay tusaan nin kuray aan dhalinyaro ana waa nahay awood ku filan oo dhaqaale iyo mid aan ku safro iyo mid aan anigu ku dabaalo nafteedana ma lihi laakiin haddana kalsooni ayaa waxay leedahay war ayadan gal dadkaaga halkaan ay ku nool yihiin halkaanaad xogaha aad raadinaysana aad ka heli meel gooniya marka yar taaganahay dadkiina markaa wixii ay cunayeen iyo khudraddii ayay ku mashquulsan yihiin ninba nin kale ayuu la faqayaa anigu kelidii baan ahay wax ila hadlayo iyo wax kalena ma jiraan laakiin meel baan ku maqanahay oon ku fooganahay xogaha markaa aad sidaa arrintu ahayd ayaa haddana waxaan isku canaantay inaan hore u socdo oo laga yaabo inaanbay dhacdaba waxa aan raadinayo dad ila mida inaan helo oo aan la jaan qaado gaarigii baan sidii ku raacnay anigoo hamigii iyo hankii igu jiro duhur dabadii ayaa haddana waxaanu galnay meel cajaayib ah oo magaalo magaceeda la yihahdo mee eyso oo ah magaalo markaasi la ii sheegay in dagaalla ka dhaceen oo laba calan ay ka taagan yihiin labadaa calan midna waa qowmiyaddii oromiya midna waa qowmiyaddii soomaaliyeed marka dhulkaa aan socdo laga soo bilaabo nasureed mutahara awaasa iyo mee eyso haddaan joogo cimiladeeda dhirteeda nolosheeda xoolaha dadka muuqaalka intaba waa jugraafiga ama waa dhulku ilaahay ummadda soomaalida ku galladay marka waad arkaysaa dhul siq inaan dhulka ka soo siqnay ama aan ka soo barabaxnay oo aan waxyaabo badan oo aan barnaamijkan ku soo wado ay u sabab ahayeen inaan dhulkan ka siqno marka ninkii baan haddana weydiiyey wuxuu yihi colaad badan baa halkan ka dhacday dhibaatooyin badan baa jira gawaarida xataa laguma waabiyo oo way gudbaan ciidamaha marka dhinaca shishe magaalada ka degan ciidamo ayaa magaalada dhinaca shishe ka degan si aan barnaamijkayga safarkii nafteeda harqaamay oo qodobkan hore aan u soo koobo halkiibaa haddana kasii gudubnay waxaan galnay cimilo kale oo ka duwan cimiladii hore oo ah dhul qoyan oo aad moodid xoogaha inuu mataqaanaa qaniin iyo leeyahay wax noocaa ah dabadeedna ka duwan kuwii hore neecaw ahaan iyo cimilo ahaanna ka duwan dabadeedna ay ka socdaan dabaylo cajaayib ah ayaan haddana galna oo buuraley ah buuraleydii iyadoo aan lahay wax ii fasira ayaa waxaanu ku hiranay haddana casarliiqi markay tahay oo casarliiq markay tahay ayaa waxaanu soo galnay magaalada la yihahdo asabtafar oo magaalo ahaan ku xigta heerimaad magaalada yihahdo ama hirna maanta loo yaqaano sheekadan waxaan ooga sheekaynayo dad badan oo soomaaliyeed dhulkaa way mareen dad badan oo soomaaliya wax soo ranaa ninka dhulka habeen dharaba meel jirnay waa meel waxba ka sheekaynayo laakiin waxaan rabaa inaan idinku celiyo oo idin geeyo waxyaabaha halkaa ku maqan asabtafar ama hirna labadaada waa labada meelood oo gawaarida ay ku habeenkaad seexdaan habdhaqankii